ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan xilligan madaxweynaha dalkaasi ayaa intii uu soo hogaaminayay wadanka Turkiga waxa uu ka sameeyay isbedel horumarineed oo noociisa aan hore loo arag isbedelkaas oo saameeyay dhinacyo badan sida dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada si rasmi ah looga dareemay nolol maalmeedka dadka muwaadiniinta ah. Barnaamijkeena xogta daasoon waxaynu ku soo gudbinaynaa qaar ka mid ah guulihii uu Erdogan gaaray muddadii uu dalkaasi hogaaminayay. guulaha oo dalka Turkiga ka dhigay wadamada ugu waaweyn ee adduunka dhaqaale ahaan iyo military ahaanba. Erdogan waxa uu dugsiyada dawladda dib ugu soo celiyay manhajka barashada Quraanka Kariimka ah oo bilaash laga dhigay, taasoo sababtay in 90% ardaydu ay doortaan inay maadada bartaan. Dalka Turkiga oo kaalinta 111aad kaga jiray liiska quwadaha dhaqaalaha ee caalamka ayaa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa uu keenay safafka u horeeya oo ah kaalinta 16aad ee liiskaasi oo uu haatan ku jiro kadib haykalkii dhaqaale ee uu dalkaasi u hirgeliyay. Madaxweyne Erdogan waxa uu taageero maaliyadeed la dhinac istaagay kordhinta taranka dadweynaha dalkaasi si uu u xaqiijiyo kor u qaadista tirada ay dhalinyaradu boqolkiiba ka tahay bulshada inteeda kale, iyadoo xilligan tirada dadweynaha dalkaasi ay cagacagaynayso 80 milyan oo ruux. muddo sanada gudahood waxaa dalkaasi laga dhisay 90 iskuul oo cusub, in ka badan 500 oo cisbitaal iyo qiyaastii 170,000 oo fasal ama maqsin oo ah kuwa gaarka ah ee qaada 22 arday oo kaliya si loo damaanad qaado muhiimadda ay leedahay waxbarashadu. ka hor intii aanu Erdogan xukunka dalkaasi qabanin, dakhliga sanadlaha ah ee muwaadinka dalka u dhashay soo galaa waxa uu ahaan jiray $2,800 sanadkiiba, laakiin inta uu xukunka hayay waxa uu gaarsiiyay wax ku dhow $11,000, waxaana u qorshaysan in marka la gaaro sanadka 2023 oo ku beegan boqol guuradii aasaasidii jamhuuriyaddii Turkiga in dakhliga sanadkiiba soo gala qofka caadiga ah ee wadanka u dhashay inuu noqdo ilaa $30,000, iyadoo shaqo la'aanta oo ahaan jirtay 32% uu hoos u dhigay oo ay xilligan marayso 2% oo kaliya. markii uu xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee uu hogaamiyo Erdogan la wareegay talada dalkaasi, dakhliga ka soo noqda waxyaabaha uu dhoofiyo dalku waxay ahaan jirtay 23 bilyan oo dollarka Mareykanka, laakiin isagoo Ilaahay la kaashaday Erdogan waxa uu gaarsiiyay oo ay maanta maraysaa adduun dhaqaale oo gaaraya 235 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. waa lacagta ka soo noqota waxyaabaha uu dhoofiyo dalka Turkiga. madaxweyne Erdogan waxa uu dalka goboladiisa u kala diray ilaa 300,000 oo caalim oo ka hawlgelaya qorshaha higsiga baadhista cilmiyeed ee 2023, iyadoo baaritaanadii cilmiyeed ee hore ee uu dalkaasi ka furay ay suuragal ka dhigeen in Turkigu ay xilligan samaystaan hubka iyo saanada ay u baahan yihiin ciidamadooda qalabka sida, iyadoo markii ugu horeysay dalkaasi uu soo saaray taangi kuwa dagaalka. waxa kale oo markii ugu horeysay uu dalkaasi samaystay maraakiibta dagaalka ee yaryar ee dusha ka ilaaliya maraakiibta diyaaradaha xambaara, waxaana lagu guuleystay in Turkigu ay soo saaraan diyaaradii ugu horeysay ee aan duuliyo wadin iyo dayax gacmeed dhanka militariga loo adeegsado. waxaa wax muuqda laga qabtay ilaalinta deegaanka iyo bii'adda, iyadoo 10 sannadood gudahood la beeray ama la tallaalay in ku dhow 3 bilyan oo geed. 3 sannadood oo xidhiidha ayaa shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airways waxay ku guuleysatay kaalinta koowaad ee diyaaradaha rakaabka ah ee ugu wanaagsan qaaradda Yurub, iyadoo madaarka caalamiga ee magaalada Istanbul ay maalin walba soo fadhiistaan qiyaastii in ku dhow 1,300 oo diyaaradood maalin walba. dakhliga wax soo saarka gudaha ee dalka Turkiga ayaa sanadkii 2014 waxa uu ahaa 1 trilyan iyo 100 bilyan oo dollarka Mareykanka, dakhliga oo u dhigmay sugeynta dakhliyada wax soo saarka gudaha ee 6 wadan oo ku yaala bariga dhexe, kuwaas oo kala ah wadamada Iiraan, Sacuudiga, Imaaraadka, Urdun, Suuriya iyo Lubnaan, iyadoo dalka Turkigu uu maalgashi ballaaran oo ganacsi ka samaystay dalalka soo koraya sida wadamada qaaradda Afrika. sanadihii aynu soo dhaafnay ee ay dhibaatada dhaqaale ee caalamiga ka dhacday caalamka, wadamada waaweyn ee reer galbeedku waxay kordhiyeen lacagaha waxbarashada ama fiiga loo yaqaano ee laga qaado ardayda jaamacadaha ku jirta, laakiin taa beddelkeeda Rajab Tayyip Erdogan waxa uu xilligaas soo saaray wareegto uu dhammaan iskuulaadka iyo jaamacadaha wadankaasi kaga dhigayo inay ardaydu bilaash wax kaga bartaan, xukuumadduna ay ka bixin doonto kharashaadka fiiga. madaxweyne Erdogan waxa uu sawirkii xafiisyada Suudaan jiray ee Mustafa Kemal Atatürk
uu ku bedelay sawirka suldaankii cusmaaniyiinta maxamed alfaatax. madaxweyne Erdogan waxa uu wadahadal nabadeed la furay jamhadda kurdiyiinta ee hubaysan si loo joojiyo dhiigga qubanaya, inkastoo aanay jamhaddaasi weli joojin howlgallada ay kaga horjeedaan dalka Turkiga. waxaana uu heshiis kala dhex dhigay labada dhinac ee jasiiradda Qobrus, halka sidoo kalena uu jamhuuriyadda Armenia raaligelin ka siiyey falal militari oo Turkigu ka fuliyay muddo 90 sannadood ka hor. boqolkiiba 98 qoysaska waddankaasi ee magaalooyinka iyo tuulooyinkaba waxa la gaarsiiyay adeega dabka leyrka markii laga faa'iideeyay mashruuca xashiishka lagaga dhalinayo tamarta leyrka loo baahan yahay. kaasina waa Rajab Tayyip Erdogan oo inuu xaqiijiyay in qof gaar ah keligii uu bedeli karo mujtamaca intiisa kale oo dhan.